رمضان يا خير الشهور فيك المحبة بلا شرور فيك السنة فيك الضياء رمضان يا خير الشهور. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إن شاء الله تعالى كلمة آدو كوبان وآد أنصو أرورنا يا وحن جعلها إنا كيدا هذا قفك حنوسنا يسون كيسا وهذه يشير لسويديو سؤال شيدنا يسون ونقطة إن إلهي وحنا قبرنا سبحانه وتعالى دتك حنوسنا إنه إلهي عافماد وسيو دتك عافماد قبنا إلهي عافمادك وزياديو قفك حنوسنا waxaynu u qaybinayna xanuunkiisa laba qaybood baynu u qaybinaynaa inuu qaybta koowaad xanuunka in la rajaynayo inuu qofku ka bogsado haddii uu yahay xanuun qofka haya oo aanu soomi karaynin laakiin xanuunkaasi la rajaynayo inuu qofku ka bogsado waxa weeyaan waa afuri doonaa qofkaasi mar haddii uu soonka ku adkaaday oo uu soomi kari waayey ama dhakhaatiirtiiba u caddeeyeen inuu soonku uu dhibayo oo dhibaato ku keenayo ama bogsashadii uu bogsan lahaa ay dib u dhacayso ama xanuunkaba uu ku ziyaadinayo ama qofka laftiisiiba isagu yahay qof garanaya inuu xanuunka ku ziyaadinayo oo xanuunku ku kordhayo dhib far badan markaas uu keenayo qofkaas waa afuraya maalmahaasi uu afuray soonka uu ka tagay bisha Ramadaan marka uu bogsado ayaa uu qaleyn doona ilaahay quraanka wuxuu ku yiri subhanahu wa ta'ala ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر marka qofkaasi isaga la rajaynayay inuu bogsado oo xanuunkaas ka kaco maalmahaasi xanuunka kaga tagay waa uu qaleyn doonaa ilaahay idankiisa insha Allah ta'ala. xanuunka qaybta labaad waxa weeyay qofka waxa weeyaan xanuunsanaya xanuunka uu hayaana uu yahay mid laazimaya oo la rajaynaynin inuu qofku ka bogsado haddii xanuunku yahay xanuun aan la rajaynaynin qofku inuu ka bogsado sida xanuunada aadka u liita oo kale ilaahay subxaanahu wa ta'aala inaga nabadgeliye sida kaliya xanuunka oo kale qofku kaliyuhu xanuunayaan ama qofka faalijku ku dhacay oo kale ama qofka macaanka leh oo kale xanuunada adag qofkii aanu ka bogsanaynin aan la rajaynaynin qofku inuu ka bogsado xanuunka noocaas oo kala ah iyada qofkii soomina maayo oo de soonku waa ku adag yahay ama waxa laga yaabaa in dhakhaatiirtuba u sheegaan inaanu soomin oo soonku iska daayo xanuunkana waa xanuun laazimayo aan la rajaynin inuu ka bogsado markii saas oo kala tahay xanuunka noocaasiya isaga qofkii waxa uu bixin doonaa halkuu ka soomeeyay maalintii fidya ayuu bixin doonaa maalin kasta miskiin ayuu quudin doonaa waxaana u bannaan miskiinkaasi uu quudinayo inuu cunto bisil uu siiyana way u bannaan tahay cunto qaydin inuu siiyana way u bannaan tahay cunto bisil inuu siiyo way u bannaan tahayo Anas bin Malik radiyallahu anhu markii uu gaboobay sida Bukhari ku sugan waxa uu soo ururin jiray masaakiin deetan cunto uu sameyn jiray waa quudin jiray cuntada ayaa uu siin jiray cuntada bisil haddii noqoto marka cunto bisil inuu siiyo miskiinka waa dharginaya wuxuu ka dhargo fiican ayaa uu siinaya haday noqoto cunto qaydin markaas inuu bixiyo waxa uu siin doonaa miskiinkii mud cunto ah mudkuna qiyaastiisa waxay noqonaysaa nus kiilo ilaa iyo kiilo inta u dhaxaysa waxaana aad iyo aad u fiican inuu qofku markaas kiilo u bixiyo marka halka waxay nooga soo ururtay qofka xanuunsanaya labada qaybood oo tilmaanay oo ah hadii qofku xanuunkii uu rajaynayo inuu ka bogsado waa qaleyn doonaa maalmihii kaga tagay xanuunka waa qaleyn doonaa marka uu bogsado ayaa uu la iman doonaa qofka aan rajaynaynin inuu ka kaco xanuunkaasi isaga maalin kasta miskiin ayuu quudin doonaa waxaana uu siin doonaa raashin qofkii xanuunsanay intaasi ku soo ururaysa laakiin waxa muhiim ah inaan ogaano xanuunku inuu yahay xanuun qofka dhibaya oo dhibaato u keenaya ama caafimaadkiisa dib u dhigaya ama saas oo kale waxa weeyaan dhibaato far badan ka soo gaarayso waa inuu yahay hadduu yahay xanuunku xanuun yar oo kooban ama waxa weey wax dhibaato aan ku keeninin sida madax xanuunkii oo kale iyo calool xanuunkii oo kale kuwa noocaas oo kale qofku waa soomaya soonkan uu diidi maayo kaasi inuu sabra ayaana laga doonayaa marka inahaas ay ku soo ururaysaa wa sallallahu wa sallama ala nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in.